hay-adda USAID gaar ahaan mashruuca geel ayaa ku wareejiyey 100,000 oo maaski ah wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk Soomaaliya. Munaasabadan kooban oo lagu wareejinayay agabkan ayaa waxaa ka hadlay Dr. Ibrahim Dhaqane oo ku hadlayay magaca hay-adda USAID isaga oo sheegay in maskiyadan ama wajixirkan lagu sameeyay dalka oo ay sameeyeen dhalinyaro Soomaaliyeed oo ay u sameeyeen shaqo abuur. Dr. Ibrahim Dhaqane ayaa xusay inay tani hordhac u tahay 500,000 oo maaski oo ay ku wareejin doonaan wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk Soomaaliya. Anagoo matalaya mashruuca geel waxaan halkan isugu nimid maanta inaan ku wareejino 500 oo hadda ka hor aan sheegnay inay mashruuca geel qaybta dhalinyarada ay horumarinta dhalinyarada iyo shaqo abuurkeeda ama kobcintooda qaybtaas iyadoo ka duulayso mashruuca geel ka duulayo in la yareeyo faafitaanka cudurkan baaha safmarka inaan ay soo sameeyeen mask ama sangashi afgashi waxa la yiraahdo si loo yareeyo faafitaanka cudurkaas. Mashruuca geel wuxuu shaqo u abuuray ilaa 304 dhalinyaro oo sameeynayo afbaalkan sangashiga iyo afgashiga oo ay tahay mid tayo leh mid Soomaaliya ku sameeyay. Wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk Soomaaliya Foosiya Abikar Nuur oo gudoontay deeqdan ayaa sheegtay inay ku faraxsan tahay inay gudoonto agab qayb weyn ka qaadan doona faafidda cudurka COVID-19 oo dib weyn ku haya bulshada Soomaaliyeed. Ku faraxsanna inaan saaka idinka gudoono 100,000 oo u horeeyay oo kamid ah 500,000 oo ugu tala gasheen oo ay maalgelisay USAID oo ay maalgelisay oo loogu tala galay in bulshada la gaarsiiyo. aad iyo aad u mahadsantihiin shaqo weyn aad soo qabateen Ilaahay ajir ha idinka siiyo sida adigu sheegtay la wada og yahay cudurkan waa safmareen taxadarkiisa ka hortagiisa wax walba ka wanaagsan tan waa waxyaalaha ugu horeeya oo qofka inuu afka xirto markuu banaanka aadayo markuu meel ciriiri galay waxyaalaha ay takhaatiirta iyo dadka khubaraada ay ku taliyaan oo mar dhowna aan filayno insha Allah inaan wada gaarsiino bulshada inteeda badan insha Allah. Agabkan ayaa qayb ka noqonaya agabyada looga hortagayo cudurka coronavirus kaasoo ku sii fidaya gudaha dalkeena Soomaaliya. Shilaawo Cabdilaahi Cabdiraxmaan, warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho.